asalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu daawadayaal meel waliba aad naga daawanaysaan mar kale waxaa idin leenahay ciid mubaarak maadaama ciidda maalintii saddexaad ee tahay maanta iyo weliba guud ahaan meel walba aad joogteen kulanti wanaagsan waa barnaamij gaar ah oo ku saabsan caafimaadka gaar ahaana maanta ama caawa waxaa marti noogu ah barnaamijka oo halkaa noola jooga waa xarunta inta badan tv-ga universal ka daawataan isbuucii hal mar ama marar qaarba inta badan lagu soo celiyo mar badan aad daawateen oo xarumo kala duwana ku leh daafaha caalamka gaar ahaan Kenya Soomaaliya iyo waliba meelo kale qaarada Yurubna ay kamid tahay ama qorshaha inta badan oo muhiimada ay tahay in ummadda Soomaaliyeed meel walba ay joogto sidii loogu shaafi lahaa cudurrada kala duwan gaar ahaan xaruntan iyadoo gaar u ah ama muhiimada inta badan ay saarto daawada loo yaqaan dabiiciga ama herbalka waa Al-Huda Herbal wax badan ayaa faahfaahin doonaa waxaana noola fadhiya maanta mid ka mid ah culimmada Soomaaliyeed oo inta badan naga shaafi doono Al-Huda waxqabadkeeda iyo waliba sidoo kale guud ahaan daawada herbalka loo yaqaano ama dabiiciga ah muhiimada caafimaadkeeda iyo waliba guud ahaan daawooyinkaas asagoo noo faahfaahin doono balse marka hore asugno ama qaar ka mid ah daawano clip ama video yar oo ku saabsan muhiimada Al-Huda iyo waliba sidoo kale waxqabadkooda sanadihii ugu dambeeyay ama gaar ahaan bilihii ugu dambeeyay oo halkaas ay ku soo bandhigayaan iyo waliba daawooyinka bulshada Soomaaliyeed oo ka faa'iideystay بذكر الله ترتاح القلوب وتنزاح المتاعب والكروب وتنزل رحمة الغفار غيثا به تمحى المعاصي والذنوب وتنفتح البصائر بعد غين فتنكشف الغياهب والغيوب وينسى ظلم من ظلموا وتشفى جراح في الفؤاد لها ندوب وتطوى ذكريات كالحات لها في الصدر إن نشرات نعيب بذكر الله ترتاح القلوب وتنزاح المتاعب والكروب وتنزل رحمة الغفار غيثا به تمحى المعاصي والذنوب لتزهر بعدها في القلب حال يساوى بالقريب لها غريب ولا يبقى سوى شوق وواجد الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. All praise is due to Allah. It is by the grace of Allah that I stand here in front of you. Alhamdulillah. By the grace of Allah, I have been appointed as the first crown ambassador in Africa and second in the Middle East. I have reached that position through hard work, dedication, and the good herbal medicine we have been offering to the clients. If I come back to you, my audience is sitting in front of me. I hope and I wish that you put a lot of hard work and dedication in your work so that you reach the position I am today. My advice to you is that you first obey Allah and put all your trust in Him. You become honest in all your dealings. Last but not the least, I wish you all the best.
بذكر الله ترتاح القلوب وتنزاح المتاعب والكروب وتنزل رحمة الغفار غيثا به تمحى المعاصي والذنوب وتنفتح البصائر بعد غين فتنكشف الغياهب والغيوب وينسى ظلم من ظلموا وتشفى جراح في الفؤاد لها ندوب وتطوى ذكريات كالحات لها في الصدر إن نشرات نعيب بذكر الله ترتاح القلوب وتنزاح المتاعب والكروب وتنزل رحمة الغفار غيثا به تمحى المعاصي والذنوب لتزهر بعدها في القلب حال يساوى بالقريب لها غريب ولا يبقى سوى شوق وواجد بذكر الله ترتاح القلوب وتنزاح المتاعب والكروب وتنزل رحمة الغفار غيثا به تمحى المعاصي والذنوب. waxaan ku noolay magaalada Hargeysa waxay xanuunayeen labada kaliyood waxay igaga jira dhagaxaan labadaba waxaan tagay dhaqaatiirta magaalada Hargeysa waxay igu yiraahdeen waxa ku xanuunaya kaliyaha igfashan baa ku haya kaliyaha xanuun saasay iguma sheegeen igfashan baa ku haya daweysiinayeen dawada markaan cuno waan ka sii dareeyay maalin baan tagay Daahir Xasan Daahir dhakhtarka wuxuu igu yiri kaliyaha waxa kaaga jira dhagaxaan labada kaliyood ba dhagaxaan baa kaaga jira waaweyn Addis Ababa aan badubay taga dad qarashaysatid waxaan tagay Addis Ababa waxay igu yiraahdeen kaliyaha waan ku qalaynaa kalida midig bay iga hor qaleen dhagaxaantii bay iga soo saareen sanad markaan maqnaa baan ku noqday tii bidixna way iga qaleen kadib waxay igu yiraahdeen 4 biloodba mar baad noo iman doontaan 6 biloodba si aan checking ku marnaan caafimaadkaaga ula socono waan ku noqday markaan 6 bilood joogay Hargeysa ayaan ku noqday waxay igu yiraahdeen kalidan bidixdu shaqadii way joojisay wax shaqo ah aan bay rajay leedahay ma jirto waan ka tuuraynaa imika diyaar noqo kalidu hadii ay inta in ka sii badan ku jirto waxa laga yaabaa in adiga naftaada khatar ku keento waanu ka saaraynaa waxaan ku yiraahday xaafadii aan la soo tashado waxa la igu yiri iskaga kaalay Hargeysa nimi habeenada kamida ayaan daawaday Sheekh Farxaan Ilaahay khayr siiye markaan daawaday ayaan la soo hadlay xarunta Hargeysa way soo tilmaameen waan u yimi sheekhan u yimi xanuunkii oo dhan baan uga sheekeeyay wixii ugu raadeero alxamdulillah nafta khayr u sheeg waxba ma jiraan waxa ay sheegeen insha Allah been bay noqonaysaa dawadaas aad qaadanaysaa dawada markaad qaadatid waad cunaysaa bil kasta ma joojinaysid bishii labaad bay ahayd dawada markii la bilaabay 3 bilood markaan cunayay baan dhakhtar u tagay ii diray wixii ugu yiri soo jijaabi kalidii baa dhakhtarkii markaan u tagay buu igu yiri kalidan bidixda alxamdulillah bay fiicantahay waa shaqaynaysaa laakiin waxoogaa yar xanuuna ayay tirsanaysaa laakiin shaqadeedu waa caadi alxamdulillah sidii baan u wanaagsanay imika Addis Ababa 10 biloodba kuma noqonin inta sanadka bishii koobaad baan ka yimi aad baan u wanaagsanahay ma sha Allah sheekha salaad kasto wallahi tukado waan ugu duceeyaa halkan waxa ka hadlaya Abubakar Umar kulanti wanaagsan mar kale iyo waliba meel waliba dunida naga daawanaysaan kuwaasna waxay ahaayeen qaar kamid ah bulshada Soomaaliyeed gaar ahaan hay'adda ama xarunta Al-Huda oo ayagu marar badan halkaasi booqday kadibna daawooyin ma sha Allah Ilaahayna ugu daray ayaguna kadib caafimaad Ilaahay daawadaas ugu daray oo Al-Hudana garab ay ku siiyeen dad badan ayaa halkaasi ku hadli doona insha Allah waa daawan doontaan gabadhaasi kadib inkastoo waqtiga hadoo noo saamaxay inta badan barnaamijka waa sii deey doona haduu Ilaahay yiraahdo
mar kale wanaagsan barnaamijka waxaa marti noogu ah sida horey u sheegayba furitaanka barnaamijka sheekh farxaan cali oo ka mid ah culimmada soomaaliyeed gaar ahaana sida wanaagsan ama weyn ugu howlgala alhuda xaruntaasi magaalada nairobi iyo weliba xarumaha kale ee ku leeyihiin sheekh marka hore kusoo dhawo tvga universal aad iyo aad xaruntan alhuda marka hore warbixin guud nagsi bismillaah alhuda herbal medicine waxay la mid tahay xarumaha adduunka ka jira wax walba oo caafimaad looga baahdo waxbay ka bixisaa xanuunadoo dhanna wixii ay ka daaweyn karto way ka daaweysaa marka alhuda micnaheedu waxay tahay in uun lagu daweeyo dawo dhaqameed ama habol taasay kaga duwan tahay xarumaha kale laakiin wax walba way daweysaa markay timaado daawo dhaqameedka ama dabiiciga daawadan ah maxay tahay marka hore dabiici inkastoo ummadda si wanaagsan ay ogtahay haddana faahfaahin guud waa loo baahan yahay in bulshada ay ka faa'iidaysato bismillaahi dawada dabiiciga waa dawo qofka bini-aadanka aan dhib u geysanayn kiimika aan lahayn loogu talagalay cudurrada inay daweyso waana runtii dawada la habeeyey oo qaar waxay soo martaa yani warshadaha lagu hagaajiyaa waa lasoo testigareeyaa waxqabadkeeda la ogaadaa cudurro maanta loo waayey ay caalamka kale ay yidhaahdaan kiimikadu sida kansarka dhiikarka sonkorta wixii o dhan dawaa loogu helay sababtoo qofkii bini-aadanka waxna uma dhibayso isagiina wax uma geysanayso xanuunkiina way ka saaraysaa marka qofka raba inuu fahmo dawadaas waa dawo dhaqameed waa dawo aan lahayn kiimiko aan lagu kaydin qofka bini-aadankana waxtar u leh aad iyo aad inta howshan aa ku jirteen guud ahaan gaar ahaana xarunta weyn ee magaalada nairobi ka waran dadka soo booqanayay siday u arkayeen daawadan dabiiciga ilaahay baa mahad iskale subxaana wa tacaala dadka runtii inta badan 98% ilaahay subxaana wa tacaala bay mahad u celinayeen maasha allah maaha alhuda inay u celiyaan laakiin markay caafimaadeen oo kii dhiikarkii ka tegey kii sonkor qabay sonkortii ka yaraatay ama ay ka tagtay ilaahay buu mahad u celinaya subxaana wa tacaala wuxuuna runtii aaminay inuuna meel kale aadin ee xataa hadduuna alhuda aadin laakiin meel kaloo habbola in wax ka doonto oo marka ay ka fuuqdo wixii kale ee maaragtay kiimikada ahayd inuu iska daayo marka dadku way ku faraxsan yihiin aaminaadaasi oo alhuda ay usoo jiiday oo inta badan hay-adda ay ka imaatay xarunta adhene ma nairobi keliya ku kooban tahay mise gobolada wadanka guud ahaan geeska africa waa tagtiin oo sida hadda ujeeday boorarkii waxaa ujeeday magaalooyin burc ay kamid tahay hargeysa ay kamid tahay sidee nigu suur gashay inaa halkaas gaartiin horta alhuda iyadu keliya may bilaabin arrintan waa arrin soo socotay waa cilmi la iska dhexlayay waa cilmi soo jireen ah waa cilmi uun dib loogu laabtay oo in la daraaseeyey markii dadkii dhib badan ay dadku u geysteen si wanaagsan la fahmay in aan qofka bini-aadanka dhib loo geysan qofkaad malaria ka daweynayso waa inaadan dhib kale u geysan waa inaad keliyiisa ilaalisaa waa inaad maskaxdiisa ilaalisaa waa inaad wax badan u ilaalisaa marka alhuda keliya ma ahayn waxaan abuuray oo wixii maaha wax maanta cusub alhuda ay la timi laakiin waa wax soo jireen ah laakiin laga tegay oo dib loo soo celiyey adeed dadku waxay isleeyihiin daawooyin dabiici inta badan waa jira caalamka oo meel waliba aad tagto daawo dabiici ma ahan wax hadda cusub laakiin waa kala duwan tahay qaababka kala duwan baahida guud ahaan maxay tahay xilligan kusoo beega is leedahay oo bulshada ay ku baahan tahay daawada dabiiciga baahida kusoo beegtay haddii anigu alhuda aan soo qaato alhuda waxay aragtay in kiimikadii qofka bini-aadanka haddii qofka qandha ay ku dhacdo oo madaxii uu aada uga xanuuno waxaa la rabaa adigoo madaxii ka daweynaya inaad ilaaliso jirkiisii kale inaad beerka u ilaaliso inaad keliyaha u ilaaliso dhaawac kale inaadan geysan taasaa waxay keentay markii dawooyinka kiimikadu isagoo madaxii daweynaya haddana keliyii uu cunayo ayaa waxay keentay in dadka lagu daweeyo waxaan kiimika lahayn oo dabiiciya oo qofkii bini-aadankana yani naftiisii dan u ah aad iyo aad ayaa umahadsan tahay shiiqa su-aalo badan waa weydiin doontaan qadadka telefoonka waa furan yihiin oo qadka ugu horeeya aan marka hore soo dhawey assalamu calaykum waraxmatullah halo assalamu calaykum halo halo ha assalamu calaykum ii maqasha ha waalaikum salaam bo miyay gudbi kartaa ha waa shiiqa kula hadlaya insha allah soo dhawo marka hore magacaaga halka kasoo hadlayso magacaygu walaal cabdullaahi cabdullaahi talo iyo weliba su-aal shiiqa oo alhuda gaar ahaan ku saabsan aa weydiinayso hadday jirto waxaan weydiin lahaa walaalow dhagxaanta keliyaha gala qofka hadduu sidiisa kale iska caafimaad qabo laakiin keliyada la yidhaahdo keliyadaada waa one plus oo
ilaa 4+ ay noqota laakiin kelidu waa 1+ dhagaxaana ku jiro si wanaagsan dhagaxaana waa 60 centimeter ayadoo wax kaloo dhibaataa loo geystan qofkii kaadi ahaan ma uga iman karaa daawo la siinaayo dhagax burburinay aad yaa sheekha ku gudbinahay sheekh dhagxaanta oo kale keliyaha gabadhan waa ka hadlaysaa filayo bismillah dhagxanta keliyaha runtii daway leedahay dawo la yiraahdo cortabis oo qofka bini'aadanka aan dhib u geysanayn waxaan indhahayga saaray nin dhakhtar ah oo waliba raggan kiimikada ku soo takhasusay India loo waday Hargeysa yimi ilaahay wuxuu qadaray bil gudaheed meeshii la yiri wayna degdeg ku gaarta India in bil gudaheed dhagaxii ilaahay subxaanahu wa ta'ala kaga baabiyay markuu isbaaray gabadhaas ka mid ah wax badan oo aan ognahay baa ka mid ah oo wali aan soo bandhigin marka adoon dib lagu geysan sababta al-huda loo aas-aasay ama halbalada loo aasaasayba waxay tahay qofka bini'aadanka in laga ilaaliyo dib hadaa dib u geysatayna ilaahay baa kugu ciqaabaya maxaa yeelay waa lagu weydiinayaa qofkan markaad wax siiso maxaad u geyn kartaa wax dhiba ma leedahay marka daway leedahay kaliyaha insha Allah ta'ala ilaahina waxaan ka baraynaa sida dadka u caafiyay inuu caafiyo ama adsanta halo ها ولا حقه كل شيء حقه دقنته dalka ingiriiska اوكي معقول ما كنت ادريسك شاشده سارن hadii reer London aad tahay waa aad wanaagsan shiiqa intuu jooga wayartahayo Brito isanda ba fila ama maalin qura inuu joogo UK adreeska shashada shaar ma kala soo xiriiri kartaa door hal ah adreeska la soo xiriira insha Allah la kala su'aalo gaaban qaba dhag ku jiro kabaabiyo oo bawdada ah miyo keena wallahi hadii qofka kaliyihiisa ay dhagax ku jiraan wax badan buu keeni karaa mana oran karo way keeni kartaa mana oran karo waa keentaa marka waa in marka lagu arko su'aalo badan oo xagga kaliyaha laga weydiiya kaadiyada wax laga weydiiya marka waxay ku fiican tahay in lagu arko aad بريتو إن شاء الله هذو إلهي لندن دائما كنت أدرس كذا كل سوحي كنت أدي ونكسنا عليه السلام عليكم قد كعجة هلو هلو السلام عليكم عليكم السلام حاول الكسول هو برامج كما قاعد هلك سؤال ليسو لندن maxaa caawa jeceshaa inaad weydiiso sheekha gaar ahaan sheekha wax badan aan sugayna ma sha Allah caawa noo imaad alxamdulillah waa ku faraxsanahay in arko berina waa u imaanaya hadii absolutely aad u maasan tahay marka alxamdu shukr caalamiin dukaan noogu furo dukaan waa alxamdulillah aad iyo aad ugu faraxsanahay aad iyo aad ma jira su'aal nooga dheeraa markastana waan dhihi jirnay Nairobi baan ka arki jirnay meelaha kale marka ilaahay khayr Allah inuu kale insha Allah gormu baxaya sheekha ka gaarnay بريتو كل يوم جوجا إن شاء الله أحد ما جوجا الشيخ دو إلهي يراد سنين بريتو رال لقى ما أنت سبت بريتو إن شاء الله كل يوم جوجا سنين ثلاثة ما جوجا بس وكيل يا مان أدريس أدريس كشاشة دكو قرن إن شاء الله هالكاسي لا كلا أسمع أسكال تلفون وها تلفون كسيجاله إن شاء الله بس مركون معنا الله لنا إن شاء الله هذا ومناكسة هذا وما صدق قد كعيك السلام عليكم ورحمة الله عليكم السلام حاول الكسر برنامجك هلكاك سو هذا سي مقعه magacayga waa Cusmaan Maxamed Cabdilaahi waxaan ka socdaa Norway hay su'aal ama tala sheekha ku saabsan gaar ahaan sheekha waxaan weydiinaa dhakhtarka xaaskayga waxay qabtaa buray kuleeda guriga haye marka burada dhakhtarka waan tagnay waxa la yiri meel xun bay ku taalaa buradu waa guriga meesha maartay cuntada marka la cunayo ku dhaxaya buradu ku taalaa si wanaagsan iyo hawada marka habeenkii markay neefsanayso qiiq bay tiraahdaa gurigu si wanaagsan marka wallahi wax dawa aan uma qorin dhakhtarku waxba dib u noqdo baa dhiigii baa laga qaaday waxba dhiigii lama sheego waxbana waa ma santa sheekha ku gudbina insha Allah hadii arimahaasi maadaama si wanaagsan ugu yaqaan sheekha ilaahi baa mahad iskale subxaanahu wa ta'ala waxaan hore u tilmaanay nabiga kaleey salaatu wasalaam inuu sheegay ilaahay cudur ma soo dejiyo dawadiisana uu soo dejiyaa marka buradu daway leedahay ama jirka kale ha ku jirto makaanka ku jirto ama dhuunta ha ku jirto waxaan xasuustaa safarkii ugu dambeeyay meel al-huda kamida aan ku tagay gabar baa cunaheedu halkan u leekaa dawaan siinay isugu daray mid ay marsanayso iyo mid ay cunayso gabadhii 3 casho ka bacdi waxay aragtay in baashii oo dhan ay baabaaday oo yaraatay يعني waxay la yaabtay iyadoo faraxsan oo is ogeyn oo argagaxsan bay timi see ku dhici kartaa bay tiri 3 casho gudahood waxa halka joogtay inay oro carad oo ay baabado marka ilaahay kuma hadibaanin marka waxaan dawo lahayn malaha xabad sooda nabigu wuxuu sheegay sallallahu alayhi wasallam inay cudurrada dhan dawo u tahay ila geerida iyo da'da mooyee marka walaal dawo ilaada insha Allah
aadaa umahadsan tahay walaal aadaa umahadsan tahay insha allah telefoonka shaashada ku qoran haddii aad seef garaysan karto shiiqa waa ula soo hadli kartiin barnaamijka ka baxa kadib ilaa berito doo ilaah yirahdo asalaamu calaykum qadka xiga aadaa umahadsan tahay insha halo asalaamu calaykum ha walaal kusoo dhawo barnaamijka magacaaga halka kasoo hadlayso walaal magacayga waxaa la maxamed cusmaan maxamed cusmaan maxaa jeceshahay caawa inaad weydiiso sheekha gaar ahaan alhuda xarunta herbalka ama daawiga dabiiciga inta badan loogu bartay walaalow runaantii sheekh waxaa weydiin lahaa miyuu nala joogaa ma la arki karaa runaantii xageed degantaadi reer u k maata haysaan degana hays maasha allah south hall waa ku dhowda waa next to you waaba halka deriska berito iyo lagu wayn insha allah berito miya ha waa taqaanaa umaleynaa south hall negma restaurant si fiican u taqaanaa maadaama reer haysa waa garanaa runaantii su-aal aniga kama qabo maxay runaantii inay wax kasta laga dawoobi karo runaantii hooyadii baa 12 sano kor qabtay alxamdulilah ilaahna uu ka caafiyey marka shaki igama jiro runaantii dawada dabiiciga iyo runaantii iyo dawooyinkan waxay leeyihiin runaantii qof arkay oo runaantii marka wuxuu baahan dadku inay aaminaan runaantii aad iyo aad insha allah culimadooda iyo dhakhaatiirtooda ay aaminaan waa mahadsan tahay aad iyo aad talo wanaagsan waaye aadaa u mahadsan tahay aadaa u mahadsan tahay walaal qadka xiga asalaamu calaykum halo ha asalaamu calaykum walaal kusoo dhawo barnaamijka على السلام استوديو انا قلت سربع ها هو استوديو هل هذا عبد الرشيد يا شيخ فرحان شيخ فرحان انا قلت سربني وعن جواز سعودي عربيه حيه المدبر انا استويني وداودي ما لقى لا حق الرجل المدى ضعيفه على يدار درجه استار اسمه قدي ادياد وسؤال ونكسن ان شاء الله marka waxba la iqowa daawo la siinaa waxtarna male وسؤال ونكسن ان شاء الله شيخك وجودنا شيخ بسم الله سؤال ونكسن raganimadu dawo way leedahay haday tahay waxantoo yaraata haday tahay Isbaaniska iyo haday tahay tuurmada biyaha kala yaraada runtii tusaalan qofka u soo qaadanaya waxa jiray nin yiri Jarmal baan tagay Mareykankana ka yimid Soomaaliya isagii xaaskiisa isla socday Jarmal waxay u tageen in lagu abuuro ilmaha gabadha loogu abuuro maadaama ay caadi u dhali waayeen Jarmalki waxay u sheegeen wuxuu sheegay ninkaasu $75,000 inay ka baxday si uu heerka ku gaaro inuu ilmo Ilaahay subhanahu wa ta'ala uu siiyo Ilaahay baana waxan bixin kara marka ninkii Hargeysa yimi checking baan ku sameynay waxaanu ka helay wax la yiraahdo prostate infection computerkii markii la saaray waxaan weydiinay meena ka helin Jarmalki ku baaray arintan ma yiri ninkii sanadka bacdi wiil buu haystay isagana waxay ku dhaheen iska dhaaf hadii biyahaaga inta la qaado haweenta lagu abuuro ilmo ma helaysid way u dayriyeen laakiin Ilaahay subhanahu wa ta'ala baa waxan bixiya ma sha Allah marka insha Allah ta'ala kuwaas laga yaabo inaad kamid tahay Ilaahayna wax ku siiyo ma yaani dhowr jeer waxay dhaheen shiiqiga raalli waxay dhaheen daciifata marka dhowr isbitaal baa iskali daawadiin qaadana bilaa fiicnaa bilna gadaal u noqonaa waad fiicnaa doontaa insha Allah إن شاء الله إلهي تلسارو شيخ الهدنة وكالمات دونا أنت أودود إن شاء الله ولا ما يسعود عربي مركز حرام كلين ما لكن والله صوت ما أنت بدل وصوت دران سؤال شاسن هذا إن شاء الله والودود دونا أيجا حرون تود أنت بدل وحرون وين ونيروبي مال بدل ودران مال ولا بعالم كاه داود وهيل كرتا يقول حديث كلام مركز تلفون كهذا شاشة دكو قرآن موجودة إبر تضبك بلاونا أوكي تلفونك سيف جريسو برنامج مركا كبح ندب وصوع انفورميشن كونا والوسينا ان شاء الله ماده كلام برنامج تي في waa ka baxayo alhuda contactigeeda waa heli kartaa aada ma san tahay sheekh barnaamijka waxaan soo socdaa clipka kale qaybta kale oo videoga waa ku nasan doona insha Allah laakiin hadda soo laabano inta badan dadka la soo wacay markii UK laga reebo ama Nairobi laga reebo hadda xarumaha oo nasiib u yeesheen waxa jira caalamka sidee daawooyinka ma dari karaa maadaama xarumaha ku leeyahay salaha Norway oo kale Sacuudiga yarkaan oo kale ma fududahay daawada in si wanaagsan nacam sababta contact waxaan la leenahay Posta Kenya ma sha Allah iyagana geeyo qofka gurigiisa ku gaaraysa ama Ingiriis ha joogo ama Talyaani ha joogo ama Mareykan ha joogo gurigiisa loo dhigaya waa uu kula soo xiriiraya kadibna halkii uu ka qaadanaya addresskiisu soo dirsanaya kabacdina waa loo soo diraya aad iyo aad qadka telefoonka kadibna insha Allah clipka kale ayaa dhameystiri doona videoga ku saabsan dadkii ka faa'iiday alhuda oo tusaale u ah bulshada kale ee Soomaaliyeed qadka assalaamu calaykum waraxmatullah السلام عليكم عليكم السلام walaal ku soo dhaw barnaamijka magacaaga halka ka soo hadlayso waxaan ka soo hadlaa Norway ma sha Allah reer Norway cawada si wanaagsan ugu xiriir barnaamijka maxaa jeceshaa caawa inaad weydiiso sheekha
caawada waxaan jecelahay inaan sheekh farxaan kala quusto gabar iga xanuunsan oo adiga markii hore qalal jiradeed ka bilaabatay markii dambana adiga 15 sano camal uu kor jiran markay ma hadasho indhaha waxay dhaheen walaciisay ka tahay markaa meesha geeyay hadduu alla ku reeyahay waxay dhaheen oo kaleento daawo ma laha maskaxda waxaa ka fadhiyay dhaheen oo daawo waxba uma qabo karno marka macnaha wax walo daawo Soomaali ah hadii oo macnaha oo wacaawi karo sidaasan marka weydii lahaa ma su'aal wanaagsan waa insha Allah bismillah gabadha waxaan jeclahay inaad ila soo xiriirto si aan su'aalo badan gabadha kaaga weydiiyo midda kale dadku inay u maleeyeen dawooyinkan la siinayo dawo Soomaali kaliya inay tahay waa international herbal adduunka oo dhan waa wax caalami ah si fiican marka Soomaalina kuma koobna wadaad kaliya wax qasadna kuma koobna waa wax hay'adaha caafimaadka soo maray oo muhiimadu waxay tahay dawadan kuma kaydsana kiimiko oo waxa laga ilaaliyay in qofka bini'aadanka ay wax u geysato oo saameyn ay ku yeelato marka alhuda kuwa ay soo saartana way jirtaa kuwa caalamka kale ay la sheer gareysana way jirtaa marka dawo dhaqameed Soomaali ku saabsan kaliya maaha laakiin waa ka guda weynta aad iyo aad ayaa u maasantahay walaal qeyr badan Allah ku siiyo insha Allah sheekh la soo xiriir daawadana daawo caalami ah maadaama oo sheekha intaasi oo yiri waxa ku daawan doontaan good ama aweedi doonaa kilibka ku saabsan sigoo sheekha safar kala bixiyay daafa caalam gaar ahaan Malaysia oo inta badan halkaas shir caalami oo ka qayb galay ayaa arki doontaan haddii Ilaahay yiraahdo kilibkaas yar aan ku soo dhaweeyay marka hore barnaamijka iyo waliba telefoonada waa inuu soo socon doonaan laakiin kilibka yar ama fiidiyoga yar oo ku saabsanaa alhuda ayaa si dhameystir doona haddii Ilaahay yiraahdo qanjirka la yiraahdo prostate-ka dhakhaatiir badan baa la maray dhakhaatiirta badan waxba dawo uun bay siinayaan chemical lahood ay iga jabinayso waxoogaa muxuu ahaayey dawo la nool baan ahaa marka waxaanu imi ninkan sheekha markii aanu imi dawo ii qoray dhiikarkii 9 casho markii aan isticmaalayay dawadii ayuu halkiisii ku noqday caadiga ahayd muxuu ahayd dabadeedna dawadii waan joojiyay aad iyo aad baan ugu ladnaaday oo ugu fiicnahay hadda ma qaato dawo ilaa muddo dhowr bilooda ma qaadan dawo dhiikar muxuu ahaayey waxaanuna iskuma arag subax walbana waa isjeegareeyaa waa normalkiisiiba u noqday Eunice Jerry I was discovered with cancer since waxaa la yiraahdaa Eunice Nyeri waxaa la igu soo cadeeyay cudurka kansarka sanadkii 2012 waxa aan qaatay dawooyin ay takhaatiirtu siiyaan dadka kansarka waxa aan ku sii noqday daciif sababtoo ah waxa aan qaadanayay cirbadihii kansarka waxa aan la kulmay walaalkaygan waxa aan bilaabay inaan qaato dawooyinka shirkadda Alhuda markii aan qaatay dawooyinkan muddo 6 bilood ah waxa aan dareemay farqi weyn iyo in aan aad u fiicnaaday waxa aan ku noqday isbitaalkii oo aan dib isu soo baaray halkaasi oo ay ku cadeeyeen inaan qabin cudurkii kansarka oo aan ka bogsaday waxa aan dib ugu laabtay shaqadaydii caadiga ahayd hadda waxa ka soo wareegatay 1 sano markii aan bilaabay dawada waxa aan ku dadaalaa inaan ka caawiyo dadka kale oo ka sheeganaya cudurkan inaan gaarsiiyo dawadan aabbahay waxa uu dhintay 2014 cudurka kansarka laakiin waqtigaasi ma aanan aqoon dawooyinkan wax ay tusayna ma aysan jirin waxaan ugu mahad celinayaa Sheekh Farxaan Cali Dhimbil oo si aad ah ii caawiyay maadaama aan dawooyinkan mar kasta gada karin Allah ka abaal mariyo sheekha mahadsanid Assalaamu alaykum warahmatullaahi wabarakaatuh magacaygu waa Hinda waxaan joogaa magaalada Boorama waxa laga helay xanuunka sonkorta 2015 bishii labaad kabacdi aan Boorama laga helay waan ka tagay waxaan tagay Hargeysa sidoo kale dawada ayaa la qoray dawada markaan bilaabay ayaan waxaan tagay herer hadaan tagay adu sidoo kale waxay dhaheen dawada iska wad intaad nooshahay dawadii baan soo qaatay waan imi muddo sanad ayaan dawadii cunayay 2016 bishii labaad ayaan sheekhan la kulmay daawo ayuu ii qoray dawadiisi markaan bil qaatay ayaan dib ugu laabtay hadana bil damo ii soo qoray 6 bilood biir waad wadaysaa 6 bilood markaan 4 bilood adigu markaan waday dawadii xanuunkii waa la iga waayay negative baa la yiri
kabacdi dhakhaatiir kale soo mar buu yiri soo baar ilaa 3 dhakhtar baan maray dib baan ugu laaftay sheekhi wuxuu yiri adubna sanaa waxa la yiri negative kabacdi dawadii waa la iga joojiyay hadda muddo 7 bilood wax daawo ma qaadan alxamdulillah ilaahay iga kaxay xanuunkii waa la iga waayay waana fiicnahay wala anigoo in badan bukayo waxaan bukay 15 sanadood dadna waxaan tegay dhakhtarka aad sababa fashan baa waxay ugu dhaadeen dhiigaaga raacay dawooyin bay soo siiyeen waxba iga may tarin markii dambe waan curyaamay waxa la igeeyay hindiya waxay ugu dhaadeen lafahaaga dhamaanay dabatana waa la soo celiyay guriga ayaa la keenay dhakhtarkana ana subax ka daawaday TV-ga sheekh farxaan kabacdi markan ka daawaday waxa la igu yiri waxa kugu dhacay subag iyo musnaabiyad 15 sano waan bukay kolba in baa la qabanayay markii dambe waan curyaamay markii siiyay 2 bilood dawadii ayaan kacay marka alxamdulillah sidii baan dawadii u qaatay labadii bishii bil markan qaatay baan bogsaday labadii bilood baan ku fiicnaaday kabacdi dawo kale siiyay oo ah musnaabiyada tii subaga markan ku fiicnaaday tii musnaabiyada markan qaatay dawadiina waan kacay waan shaqaystay in badan waan bukay 15 sanadood dawadii ay soo siiyeen hindiyana waxba iga may tarin waxaan qaadanayay 2 sanadood marka iminkana waan fiicanahay alxamdulillah waan caafimaad qabaa waxaan u duceynayaa sheekh farxaan waxaan leeyahay caafimaadka iyo cimriga iyo reerka bay ilaahay ku barakeeyo aad iyo aad ayay umaasiyihiin kuwaasna waxay ahaayeen qaar ka mid ah bulshada soomaaliyeed oo ayagoo hore uga faa'iidaystay ilaahay la tala saartay kadibna alhuda ayaguna si wanaagsan ugu dadaalay kadibna maasha allah waa ka oo jawaab wanaagsan ee kasoo bixiyeen bulshadana inta badan alhuda sidaas ayay aaminsan yihiin oo meel walba ay joogaan gaar ahaan shiiqa oo sheekh farxaan maanta caawa nasiib u yeelanay qof walba oo la kulmo iyo waliba qof waliba oo meel waliba talo oo ku siiyanay ilaahay caafimaadku ugu daraa sida bulshadaasi hore u sheegtay qadka xiga salaam calaykum waraxmatullah السلام عليكم. ها والله كسولو برنامجك مقعد كسو هادليس أبو وحان كسو هادلا لندن سولو برنامجك هاي وي سومالية هاي ما شاء الله هاي برنامجك marka waxaan rabaa inaan weydiiyo sheekha waxaan la ahay kaliya waxa la yiraahdaa waxyaabo la yiraahdo polycystic kidney disease ayaa kaliya iga dhacay ama burooyin ama nabro xaaladdooduna waa aad u hooseysa marka sifaynay macnaha ilaahay waa laga sifaynaa gacanta xitaa laga sifeeyay waa laga sameeyay laakiin weli laguma bilaabin inuu sheekh ka dhihi taqaadir hore ma u tagtay cusbitaalan la xiriiraha okay hay sheekh بسم الله runtii nasiib bay leedahay haddana weli kaliya laga dhaqin kuwa laga dhaqana nasiib bay leeyihiin waxaan xasuustaa tusaalayaal baa soo qaadanaya markaan qofka u jawaabayo wiil ay kaliyihiisu marayaan laga dhaqayay labadaba 12 bay marayeen dhaqitaanku markay bishii ugu horeysay aan dawo siinay 7 bay kusoo laabteen ما شاء الله bishii ku xigtayna 5 bay yimaadeen ما شاء الله haddii 4 iyo 3 inta u dhaxaysa ay timaado kaliya dhaqitaankii baa laga joojinaya ما شاء الله marka waa wax ilaahay lagu mahadiyo subxaanahu wa tacaala midda kale dadka waxaan u sheegayaa alhuda wax ma caafiso ilaahay baa wax caafiya subxaanahu wa tacaala dadaalkii in dadka laga ilaaliyo wax naftooda dhibaya oo wax u geysanaya lana siiyo wax dan u ah oo ku habboon waa intaa aada u mahadsantahay hooyo soomaaliyeed haddii brito london aad tahay haddaa imaan karto southall iyo adreska halkaan saaran inaan weydiiyo waxyaabaha geedaha herbalka inuu sheekhu ku weydiiyo inuu wax ku daaweeyo qiyaasa waxyaabaha herbalka markaan isticmaalana waa ku xanuunsadaa waxaa laga yaabaa in si wanaagsan oo shiiq ama dadka si wanaagsan in lagu faahfaahin laakiin shiiqa wuxuu ku tusiyaa sida ognahay directionka ama sida ugu wanaagsan iyo qaabka loo qaadanayo brito ma imaan kartaa london يعني أدرس هاي شيء وحدي كرت ولا وحاجة هبولك ضد كحنوصة سوى نفسه لكن أنا مركن دراسات كوسميني وحاجة قفك أما إلبا كوشرت أما جيمبا كوشرة أوكي درتن هبولك عن طبيعي عن كيمي كذا لحين عاد وحيقول بتاع قفك أما إيشو كوشرته
ama sixirka ku jirto wax kala ku jira waxaasa waxay diidayaan wixii jirka la gelinayay dawada ah oo iyagii bay dhibayaan marka qofkii waxay ku keenay waxaad aragtay qofka marka quraan lagu akhriyo uu boodboodaa uu qayliya yani quraankiiba waxa diidaya wixii meesha ku jiray marka waxa laga yaabaa waxay la xanuunsanayso in wax kale jiraan marka insha Allah si su'aalo lagu weydiiyo oo waxa ku dhibaya habbalkuna isku mid maaha midna waa mid caalamiya oo testing soo maray oo marka Google garayso inta Ilaahay ku caafiyay aad arkayso iyo mid qof sameeyay isku mid ma aada uma santa hooyo Soomaaliyeed dad kale ayaa fursad sii doona insha Allah alhudana herbalkeeda waa mid caalami ah maadaama Malaysia klibka daawanaysan oo hadda ka hor oo ka qayb galay shiiqa kadibna halkaasi oo shahaadooyin kala duwan lagu soo gudoosiyay oo shiiqana oo ahaa qofka kaliya Afrikaanka halkaasi tagay marar badan waa daawan doontaa insha Allah qadri salaamu calaykum waraxmatullaah وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حاول الكسر برنامج كما قاعد هلك سؤال لسه ما سن. والله ما قاعد يقول قال له هرجيسة ما شاء الله حرنتي وما هلك سؤال جارتي. كورن الهدى. ما شاء الله مقلد شري لكن حدوني أنا هل سؤال وديوني. هي. وقت بدنا نفكر قد كدرات دي وقت كان قصة اللي يفوق. نقدر هلا نقويها هي شيء وسؤال توصل ودي إن شاء الله. هذا مدرسة بلاد وحنا كحنونا يا ابنها لا رتوين كأردن بيحنونا يا. هي. marka neerfa xanuun bay mar igu sheegaan mar wax igu sheegan aduu dhakhtar baysadkiigoona tagin yahay si wanaagsan marka aan kula hadlayo waxaan tagay dhakhtar baysa oo imka 7 dhawiisa qada hargeysa neurology la yiraahdo wuxuu igu sheegay xanuunka fashion wuxuu igu ku dhacay laabatooyinka ma xasuusto waqtigaas ku sheegayay hadda hada waan curiyaanaya socodkaygu waa daciif waxa naga yaabay laga bilaabay jilbaha ilaa nawaha dhulka la dhigo salaada waxaan ku tukadaa kursiga saadeedina aad baa u yarto gabadhan yaraa baan ahay marka waxaan weydiin lahaa bal ma jirtaa dad noocaas ka soo maray dhakhtarka ma jira dawo lagu daweyn karo urug xanuunka aad iyo aad hay sheekha ku jawaaba insha Allah bismillah horta gabadhaas waxaan siin doonaa tusaalooyin runtii hadday isku aragtay aan rajaynayno inayba sheekh sugina meesha alhuda ay tagto tusaale ahaan lugaho kale laba cudur baa aad u gala cudur la yiraahdo baabasiir way gashaa qofka margiyada xanuunaya garbaha xanuunaya caajis badan buu jirka dareemaya lugaha xanuunaya lugaha ma laabi karo calooshu way istaagtaa cudur kale arthritis baa jira oo runtii qofka bini aadanka isna lugaha ka gala marka waa inaad ogaataa bal xanuunkaagu sida uu yahay oo adigu aad isqiyaastaa marka alhuda wayba ku dhowdahay caanaha riyahay ku taala shifa college dad badanna way ka faa'iideysteen runtii ilaahay baana ku mahadsan subxaanahu wa tacaala marka xaruntaa tag hana soo wac maalin walba 20 30 qof baana soo waxay igu daranta markaas garba xanuun ilaa margiyada oo faho kale way xanuunayna sidoo wax naqas ayaa noqonaya gacmaha biyaha ma xataa ma weysan karo weysada ay u darqaymo weysan karo lugaha kama socon karo aad iyo aad marka tag walaal waxa laga yaabaa baabasiir inay tahay waxa ku haya adigu meesha tag insha Allah la xiriir insha Allah adiga nasiib leh hargeysa xarunta tag insha Allah kadibna halkaasi si wanaagsan ay ku soo dhaweyn doonaan maamulka alhuda oo ku sugan hargeysa aad oo maasantahay walaal qadka xiga salaam alaykum waraxmatullaah السلام عليكم. عليكم السلام walaal ku soo dhaw barnaamijka ها والله waxaan doonay sheekha inuu su'aal weydiiyo haye magacaada ku raadin haliya sahra xuseen haye sheekha su'aal weydiiyo ku saabsan alhuda haye ها والله waxaan weydiin lahaa sheekha halka laabta ha ila laabta hoosteeda inta adigu caloosha ha ayaa maxay fulanay xanuun baan ka dareemaa xanuun ma waxaan ka dareemayaa kulayl aad u fara badan baan ka dareemaa dhakhtarada waxba iguma sheegin laakiin kulayl fara badan baan dareemaa dhiig baan dareemaa mar sida way soo foorida halkaa laabta ilaa halkaa guriga ayaa isoo fooriya dhiig oo kale iguma dhacaayo markaa waxaan weydiin lahaa sheekha waxyaabahaas hore qof dhibaatada arrimahaasi keena waxyaabaha keena caloosha kale weynta caloosha kale way soo buuranaysaa sidii qof xaamilo oo kale ani jirkaygu wada dhuuban yahay qof dibirahay oo kala tahay waa fahmay okay hay sheekh ku jawaab bismillah sidii gabadhii kale calaamad tirinaya insha Allah taala horta waxaad ogaataan dhakhtarku ama baaritaanka qofka lagu sameeyo ee negative la yiraahdo xanuunadan kale shaadinta tahay sababtoo computer baa la saaray computerka wuu soo saari lahaa oo waxa loo sameeyay aaladan qofka jirkiisa in lagu ogaado laakiin waxa jira sida jinka isha iyo sixirka
way adag tahay inay soo saarto marka calaamaadkoodaan tilmaami doonaa insha allahu tacaala ilaa 5 calaamood ilaa 6 calaamood si qofka bini'aadanka uu ogaado bal waxaan hayaa waxa ay yihiin waxa ka mid ah naxdin inuu qofku yeelanayo waxa ka mid ah il haday tahay meesha laabta ay sheegayso inuu qofku xanuunayo in dhafoorada iyo madaxu ay xanuunaan in marmar haday umusibiyaan ku jirto wax dhalmada la dagaalama jira ama guurka la dagaalamo dibaray yeelanaysa calooshii baa soo fuuraysa bal waxa laga yaabaa caloosha inay wax ka dhaqaaqaan waxna kuma jiro caloosha waxba ka dhaqaaqaya ka nuuxsanaya marka dhakhtar walba loo geeyo waxa adkaanaysa inuu ogaado sababtoo waxaan ruuxdii bay la xiriidhaa dadkan diinta yaqaan unba ogaan kara oo fahmi kara waa ruuxiga marka haddii calaamaadka qofku uu leeyahay isku arko dhabarka ka mid ah qofku inuu xanuuno dabagibinta haddii calaamaadka aad ogtahay inaad leedahay إن شاء الله تعالى دوات هليسا إلهنا وحلقة يبا إنو كعافي سبحانه إن شاء الله هذا ما سنتهي وحن ويدين لها يوكل ولا على عرب كوكل ويودا دلعسين هاي ويحنونا عرب كوا دلعسين هاي يعني ها تحوية شا دخاتيرتو waxay kugu sheegeen ma jiraan دخاتيرتا مو tagtay wili ها waan tagay waxba ma sheegan waa caafimaad qabtaa ay ku leeyihiin ha marka adiga waxa marka cunayso iyo dhadhanka iyo testiga wax waliba okay waa ha إن شاء الله إمودة وحن رجينا بسؤال دير أين كويدينه إن شاء الله بريتولا هذا ما سنتهي صوت لي أدريس هالكاس قرن هذا ما سنتهي ولا قد كعية السلام عليكم ورحمة الله الو السلام عليكم عليكم السلام ولا الكسور وبرامج كم قاعد يلقى سؤال ده ما سنت واي ولا هذا ما سنت هي أوكي تي في كيس كجوا دور هالي تلفون كان صعب أبغى كسرت تي في si wanaagsan haye su-aashaada sheekha ku saabsan ama alhuda iyo weliba daawadan oo dabiiciga maasha allah walaalo horta sheekh iyo idinka horta marka hore aadan idin salaamaya marka xigtaniyo sheekho walaalo waxaan qabaa dhiikar muddo 6 sanadood ayaa hadda dhiikar ahaay marka dhakhaatiir Norway aan deganahay magacii Cabdiqaadir Amiin Allah marka dhiikarkaas marka niyo aan rabinaa sheekh wax ku weydiiyo daawo ay jirto oo iyo in asiga inaan la kulmo ay khasab ay tahay iyo inaan daawada kaliya aan dalba karo waa su'aal wanaagsan ma sha Allah dhiikarka iyo sokorta iyo sheekhi si wanaagsan ay ugu howlgalaan waana hadda waa daawad kartaa insha Allah iyo waliba wareegis kartaa waxaan rabaa inaan adoo ila kulmin adoon dawada dalban inaan wax kuu sheego ma sha Allah haddii waxa siday tahay aad u qaadato waxa laga yaabaa Ilaahay subhanahu wa ta'ala inuu ka kaxeeyo tusaale ahaan waa tajribo aan tajribeynay oo aan in badan u sheegnay dadka cidii qaadato way ku guuleysata ma sha Allah iyadoon dawo laga gadin iyadoon telefoon una xiriir samayn iyadoon maaragtay marka haddii dhiikar uu ku hayo salaatuleylka laazim ma sha Allah ilaahay subxaanahu wa tacaala habeenkii isku day inaad u kacdo waqtiyada ka mid a dadka ay hurdaan haddaad laasinto dhiikarkaas waa tegaya hadduu qofku waa waxaan indhaha saarnay oo dad badan tajriibo aan ku samaynay walaal ma dhegeysanay haddii taa waxaan xasuustaa maraykanka in wax yar waxaa laga yaabaa in halo assalaamu calaykum وعليكم السلام sheekh waa la socotaa taladiisa ma salaatuleelka kaliya daawo dawo way jirtaa haddaan salaatuleelka tukan karin dawa lagu keenaya laakiin adoo salaatuleelka arkayo bilaa lacaga waxaa fiican salaatuleelkaaga inaad intaad aaminto aad isku daweyso waxaan xasuustaa 2 nin baan qiso soo qaadanaya nin Maraykan buu naga soo wacay waxaan u sheegnay salaatuleelka inuu ka hormariyo lacagta oo lacagta intuu iska daayo lacagtan uu soo diray intuu iska daayo marka salaatuleelka tukado oo isku dayo inuu marka hore isku qanciyo barnaamijka niyeysto war wuxuu yiri salaatuleel lahayn baash ma soo diraysaa annaguna waxaan nidhi waan ka qaadaynaa lacagta ku soo dirayna nin kalena waxaan u tilmaanay oo dhiikar qaba oo dhakhtar uun ku xidhnaa oo laga yaabo inuu 40 sano qabo oday ah inuu salaatuleelka laazimo ninkii dhowr iyo 10 casha ilaahay kaga kaxeeyay subxaanahu wa tacaala ma fahanti marka muhiimaddu waxay tahay war hadiiba aad wax lacag la'aana aad ku helayso in ilaahay subxaanahu wa tacaala tadmaina qalbigan kacaya ama yani dhiigan kacaya wuxuu noqonayaa inuu dego sababta alla isku xiray qofkii ma maadsantahay aad u maadsantahay walaal insha Allah telefoonka qaado sheeqana si wanaagsan ula soo xirin insha Allah asagana waxyaabo badan waa ka shaafin doona haduu ilaahay yiraahdo oo dabiici ku saabsan qadka xiga assalaamu calaykum waraxmatullah halo assalaamu calaykum قدتك وانا وصول سعودان الشيخ عاو مرتضى ان شاء الله السلام عليكم ورحمه الله ها ولا الشيخ عربي ها ولا مقعايا كسود لي صدى ماسه marka hore ولا waxaan ka qaaday Ethiopia Turkiga Ethiopia okay magacana mahdi baa leeyahay walaal haye su'aashaada ku saabsan waxaan
su-aashaydu waxaan qabaa dhiikar muddo ilaa 6 sana keliyaha igu biira hadday xanuunaa marka waxaan rabay inaan sheekha dawo ama qaabkan u heli kara isaga waa wanaagsantaa Kenya ku fudud baad inaad tagto laakiin sheekha ku sheegay wajaale insha Allah wajaale aan xarun ku leenahay oo jigjiga u jirta 60 kilomitir dadka wajaale Ethiopia halkaas ay yimaadaan marka wajaale la xiriir dan anay contact ila soo sameynayaan kaliyahan waxaan isku daynaa kaliyahan dawo ka siino laakiin dhiikarka waxaan ku qancinaynaa wax ka fiican dawada anagu aan bixinayno oo Ilaahay aad ugu dhawaanayso subhanahu wa ta'ala ma sha Allah waa jawaab free ah oo qof waliba inta badan laga helin aad u maasiyan sheeqa wajaale la xiriir maadaama Ethiopia ay joogto aad u maasantahay qadka assalaamu calaykum waraxmatullaah وعليكم السلام ولا البرنامج كسودو مقعي هلك سؤال ليسو وعليكم السلام شيخ قريب ولا سؤال ويدي حلقك سؤال لي ولا لندن حي ما شاء الله سؤال هذا يا سؤال هذا ويا سؤال هذا ويدي شيخ سؤال شيء وحيت ولا قبل الهيران هاي حتى انا waxaan qabaa jirka saas u joogo iska kay bararaa dhiig badan aan leeyahay qaaday dhakhtarku wax badan waa tagay waxa ma igu sheegan sidoo kale caloosha way barartaa ما جيرك ولا بس عaloosha kaliya caloosha way barataa korkeedana way bararaa okay haye بس sheekha ku jaa insha Allah waxaan rajeynayaa walaalahay insha Allah taala hadii dhakhaatiirta inta u tagtay lagu baaray computer lagu saaray negative aad noqotay in xanuunadan kale ay ku hayaan marka sidii aan tilmaamayay wadna garaac madax xanuun naxdin caloosha oo dibirta jirko barara wuxuu leeyahay in qofka il ku dhacdo hadii jirkiisu qurux u leeyahay ilba ku dhacaysa saasa keenaysa inuu qofkii u bararo sababtoo bararkan haduu keenayo bararka laba shay baa keena in qofka kaliyaha ay xanuunaan oo kaliyaha xanuun uu ka qabo iyo in lagu joinska ay dhacaamadu ka dhamaadeen oo saa ku bararo meelahan kala laabma hadii labada laga waayay oo kaliyihiisi ay nadiif yihiin ama ayna dhacaamadii lafuhu ay leeyihiin ayna ka dhamaanin waxa xiga saddexaad waxay tahay il bil aadan inay leedahay marka si su'aal lagu weydiiyo meesha aymo insha Allah هذا أمر سرلندا تاسو ما ولا إن شاء الله صوت ولا ما كرتها في الأبيرة دولة هيران سؤال كلا لو شقنا ويدي هو يدا جوكتا أيضا نشي قوم ماذا حتى أنت قدي هذا وين بررتا ماذا حنا زائد أيو حنونا بركنت مركز صارتنا بحتر هذا وإلى وريجانا يا مركز ديكري وحوم ملا ما يديكر ما قبض حوم قد ما شسكر ما قبض ديكر ما قبض في عنتها أوكي تنتي هذا هو يسيتاي ما صفتي بقى وحش الحسن مياه من سواتين عادي تتكلم إذا markaas taabad waa barar caadi ah madaxa dhakhtarka sadaqeynana fili waxa ma qabto maya bararka kuma weydiin madaxa tinteeda ka waran baan ku ritin aad u jilcsan ma leedahay tin jilcsan leedahay aad baad u maadsantahay marka meeshay waxaan ka fahmay ma sha Allah بريتي يا لغوان إن شاء الله حرونك آذو فدود هالشيء غصو شيء هذا ما سنتا قدك السلام عليكم ورحمة الله عليكم السلام ورحمة الله وبركاته ها ولا الكسودو برامجك ولا الدوها بو شيقة وحارب إنا ويرتضى حنون سنة هاي فإن مدة حنون سنة 2 صح بأفرو الأخطر كأن تغنى نغتيف إليه إيطاليان تغي جرمان كان تغي بلجيم كان تغي حنون كاق محوية مرك حقا لقاها إنتا وحي إيقاشا عمر هذا MS مورتكلروز أوكي بعد وبحي ترياني كان تغي هاي يقولي كوما هيدا جرمان كان تغي وحالي يقولي كوما هيدا صح بلجيم كان تغي كوما هيدا باريس كان تغي كوما هيدا ليلها بأستير وحنون سنة هاي اوكي marka inta badan laakiin adaa iska niyeysatay miyaa macnaha maadaama takhtar waliba negative ka sheegay adiga wali waxa bisantahay in cudurka uu jiro ba still socodkiina waan gabay still gurigayga waa ka shaqaysan karaa waxay ciyaalkayga waa haysan karaa laakiin I can ma dhaqaaqi kari you can walk ha ma socod kartid inta badan socodkaygana ma badno markaan banaanka aadayo garab xalay qabanay sidii qof socod barada aad sheekh inuu fahmiyaa filan insha Allah walal waxaan rajaynaynaa hadii dhakhaatiirta aad tagtay intaas wadan aad martay oo kombiyuutarradii lagu saaray ay negative ku yiraahdeen ilaahay waxa laga yaabaa jid inuu ku furo marka meesha imaw dadku isugu imaanayaan waa maadsanta insha Allah aad u maasantahay London faa'iido dadka halkaas joogo waa nasiib badiyay maadaama sheekh maalinta birito ah oo joogo kaliya reer London waa insha Allah iyo gobolada kale UK السلام عليكم ورحمة الله qadka xiga maadaama barnaamijka gaba ah ku dhowna insha Allah qadka xiga السلام عليكم هلو qadka xiga هلو ها walaal ku soo dhaw barnaamijka magacaaga ka soo hadlayso walaal magacayga waxa la dhahaa Faalima Liida Bolton ka soo hadlay koode kow
marka waa ku salaam walaalo waxa waaye meesha oo qominkaana qanjiyahana mar walba bararaay marka ayan marna degaayeen habeenkii markaas ahayd oo kale waxaba wax dhareer dhiig oo kan wasaq arga amala iga imaataa waxaas maxaa waaye walaalo sheekha ku jawaab insha Allah bismillah qumanku waa xanuun jira laakiin waxaa jira wax quman iska dhiga waan tilmaami doono runtiina waxaan ku aragnay gabdhaha le tusaale ahaan cabaayadaha waxaa jira warwareeg halkan ku cunaha dumarku ay leeyihiin cabaayadaha cabaayada waxaa la yidhahdaa wareeg ilaahay subxaanahu watacaala halkan dumarka ugu sameeyey waxaa laga yaabaa gabadha muslimadda qof kale oon lahayn iyo waxaas in il ay kaga dhacdo sababto waan daraasaynay gabdhaha u badan ee halkaa ay wax ka soo baxaan ama quman kale waa gabdhaha ugu badan ee waxaa leh waan weydiinaa sababto ilba halkaa kaga dhacaysa xanuun bay isu bedelaysa intay qurux badan marka waxaa laga yaabaa inay gabadhii meeshii laga rabay inay waxan qarsato banaanka ay soo dhigto qof marka aan wixii lahayn ama qof arkay quruxdeedii oo maasha Allah una dhihin oo isha ay saa kugu dhaxdo marka hadday xoqado tahayna ama quman ay tahayna daway leedahay hadday bahasha tahayna daway leedahay ilaahay bana wax ku daweeyay subxaanahu wa ta'ala إن شاء الله أد بقى وما سنتها ولا الغير الله كسيو شيخ إن شاء الله وكل جوابي ريلندا متي لكن تليفون كل حرير شيخ هذا إن شاء الله كوسول بيدنا قد كان السلام عليكم ورحمة الله هلا السلام عليكم هلو السلام عليكم عليكم السلام ولا الكسول برامج كما قاعد هلكك سؤال ليسو magacayga waxaa la yidhaahdaa hooyo Soomaaliyeed waxaan joogay laba maksa hadlayaa وينساقي ولا إنا كاد برنامج كتاعتين أدبر والسلام السلام عليكم. هذا ما سنتهي كسروا. الشيخ حودي لها أشل مش الشيخ بري ما أنا كم في درس الله هاي ما شاء الله. مرحبا حودي الشيخ بيلي رأس كنا هذا القرآن هذا الكلمة بيدا لكن هذا الكلمة هاي وحنا أوتيستيك الله يرحمه معرفة هذا عروض الوشية. أوتيزم كم يا؟ ها ما كان وين إنه نقعد وده. autismka dawu leeyahay run ahaantiina badanka wuxuu ku badan yahay dhulkan dadka Yurub waa in kuweyshin aad isweydiisaa waay uu ugu badan yahay Yurub dadka ku nool waa wax runtii u baahan in kuweyshin la weydiiyo waxaan u haynaa insha Allah taala qofkii Ilaahay ku daweynayo subxaanahu wa tacaala oo dad badan oo aan hadli jirin maanta ay ku hadleen ilmaha waxaan ugu talagalay 3 chocolate mid la yiraahdo hot chocolate ma sha Allah hot chocolate ka oo Mareykan ah iyo mid la yiraahdo DXN oo Malaysia iyo mid Philippines oo intuba ay ku jiraan dawo habbool ah oo runtii qofka laga yaabo inay xaaladda ka saaraan codkii ay soo celiyaan firfircoonida ay soo celiyaan fahankii ay soo celiyaan oo dabiici ah marka qofkii Ilaahay ku caafinayo dawa loo haya insha Allah absolutely reelanda hadaa tahay insha Allah ka faa'iideyso birta dawlaha Iran biri what time shakhs safar sana wala 4 saac ilaa 10 waan ku jiraya insha Allah subaxii ilaa galabkii 10 subaxdii morning insha Allah 10 morning كان دمون اوكي هي وصوت الادريس كالكاس كله هذا ما ستا gabagaba iyo barnaamijku dhawe qadka ugu dambeeya ayaa jecelnahay in wacno salaam calaykum waraxmat ullah السلام ورحمة الله. حاول الكسول برنامج كمجاعي هلكك سؤال ليسو سؤال يولي بتهلو كسابسن. دبا ما شاء الله عنجوا مقدشو. حي ما شاء الله. شيخ حاول يدل لها قن كرك عنونا. كرك ودم. برا وانا. وانا برا. اوكي. ما شاء الله. marka wax allergy ama skin disease oo lagu sheegay ma jiraan. allergy waa la sheegay daawo waa la siinaa waxay midare waxa lagu yaabaa daawada lagu siinaya inay beenka marka wax yar ka dilayso laakiin ayna toos u treat gareynin wixii la rabay sababtoo muhiimadu waxay tahay dadku inay fahmaan infection markuu qandho leeyahay haddaan anu qandhadii un la dagaalamo infectionka meeshiisii uu jooga waa inaan isku dayaa inaan abaaro cudurkan keenay qandhada in isagii la dilo marka wax lagu kala duwan yahay waxay tahay war sonkortu xanuunaday keento iyadii un hatreed garaynin laakiin isku day sonkortii laftigeedii xanuunka keenaysay in iyadii la daweeyo oo iyadii la abaaro marka insha Allah taala muqdisho xarun baanu ku leenahay waana insha Allah taala telefoonka la soo xiriir xaruntana waa lagu siinayaa bakaarahay ku taala waa mahadsantahay aad iyo aad ayaa u mahadsantahay walaal waa fahantaa amalena insha Allah
faham insha allah aad iyo aad reer muqdisho hadaad tahay waa babakaaraha halkaasay kala xiriir aadaaba nasiib lah dad qaar oo wadamada naga soo wacay Norway oo kala caawa xarun kuma laha aad ayay umaadsan yihiin kuwaas waxay ahaayeen guud ahaan dadka na soo wacay sheekh ugu dambeyn barnaamijka maadaama gabagabo uu yahay xaruntan intay jirtay dad badan ayaa ka faa'iidaystay dad badan hadda waa soo wacayaan waa aragta oo telefishinada iyo waliba warbaahinta qaybaheeda kala duwan ka daawaday mustaqbalkiina muxuu yahay mustaqbalkaygu wuxuu yahay wax ka duwan waxaan tilmaamayno maasha allah tusaalahaan hadda dawaan wadnaa laakiin mustaqbalka waxaan rabnaa qalbiga qofka bini'aadanka inaan tilmaano maasha allah waxa u mufiidka tusaale ahaan hadda gabadh baa waxay ku leedahay lugta ay barartay dhakhtar baan u tegey dhakhtar bay aadaysaa lugta markay bararto laakiin su-aashaan ku weydiinaya waxay tahay qalbiga haddaad ka jiran tahay oo ilaahay aadan ku xidhnayn subxaana wa tacaala yaa ku daweyn doona ilaahay baa ku daweynaya subxaana wa tacaala marka muhiimaddu waxay tahay alhuda waxay u socotaa inaan qalbiyada u dhacno oo tusaale ahaan aan dadka u sheegno waxa danta u ah in tawxiidka laga dhiso in akhlaaqda laga dhiso in isagoo dawadiisii haddana la daweynayo loo tilmaamo waxa isaga ku habboon war dhegtii iska daweysay ishiina iska daweysaya halkan waxa ku jira ee ilaahay berrita uu xisaabinayo yaa kaa daweynaya marka hadafku waxay tahay inaynu ilaahay ku wada xidhnaano si ilaahay subxaana wa tacaala uu noogu gargaaro waa mahadsanta aad iyo aad ugu dambeyn taladaada guud ahaan maadaama berrito dad badan aa is arki doontiin dadka nasiib u yeelan in aa is aragtiin adigana maadaama wadankaana inta badan aa sii joogeen taladaada guud ahaan bulsho badan ayaa ka faa'iidaysan doonta ku daawan doonto aa siinayso bulshada maxay tahay taladan siinaya waxay tahay caafimaad waa la helaa laakiin weli waxaan ku taagnahay qabriga markaad gasho su-aasha ku hor taalla waxay tahay ilaaha allihii ku abuurtay keebuu ah waa inaad ka jawaabi karta rabbigaa aawe rabbigaa ma taqaani nebigaaga ma taqaani calayhi salaatu wasalaam diintaada ma taqaani marka inaynu isku dayno bal awalan inaynu ka jawaabno intaynu adduunka joogno inaynu ilaahayn barano subxaana wa tacaala sidaad caafimaadka u raadinaysa inaad u raadiso sidaad jarmal u tegeysa sweden u tegeysa ingiriiskaad u imaanaysa adoo caafimaad raadinaya waa inaad isku daydaa noloshana waa yar tahaye bal isku day inaad wax badan ka faa'iidaysato oo ilahay isku xidho waa mahadsantahay aadaa umahadsan tahay life is short waa shiiqa sida uu nagu soo gabagabeeyey aada u mahadsan yahay barnaamijka gaarka ahaa oo ku saabsanaa alhuda herbal medicine oo xarunta guud ahaan herbalka markay timaado daawooyinka dabiiciga ah oo ku saabsan oo guud ahaan gaar ahaan xaruntooda Nairobi ku taala iyo daafaca caalamka Soomaaliya magaalooyin badan ay ku leeyihiin qorshahan uu yahay Yurub iyo waliba magaalooyinka Soomaalida ay degan tahay inay ka howlgalaan shiiqana maanta ah iyo habeen dambe insha Allah labada maalin soo socota ama berito guud ahaan inuu wadankan joogi doono oo shaashada adrees ku qoran dadka nasiib u yeesho oo UK ah oo halkaasi marti uu ku yahay su'aal badan aad weydiin doontaan insha Allah sheekh farxaan cali dhimil ayaa barnaamijka marti noogu ahaa anigu cabdirashiid rashkan oo la socodsiinayay cabdixakiin alfaqi ayaa barnaamijka sidoo kale gacan ka geystay oo soo saaray farsameynayay intaan kulmayno barnaamij lamid ah aniga iyo shiiqa sidoo kale waxaa idinka tegayaa ciid wanaagsan maalin wanaagsan meel walba aad dunida ka joogtaan asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu